nabadda wadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub oo aan uga hadlayno arrimihii tahriibkeeda halkan uga barateen muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa meelaha ugu fudud ee la mari karo iyo sidoo kale su-aal ugu badan oo ayna soo weydiinayaan saaxiibadeena inagu xiran taasi oo ahayd maxaa u dambeeyay maalmahan xaggee la marayaa marka barnaamijka waxaasuu ku saabsan yahay laakiin ugu horeyn waxaa idinka codsanaa muuqaalka in aad leeg la dhacdaan muuqaalka haddii aad leeg saartaan waxa ay noo sahlaysaa in aan meelo badan aan gaarno isla markaana asxaab badan gaarno sidoo kale waxaa idinka codsanaa inaad muuqaalkan u sheergarisaan qof walba oo buufis ku jiro ama reero tahriiba ama danaynaya inuu mar uun ka tago dalkiisa islamarkaana u gaaro halkaas iyo Mareykan ama wixii wadamada la midka barnaamijkeena maanta waxaan adaan usoo laabano aan kaga hadli doonaa meelaha ugu macquulsan ee la mari karo iyo sidoo kale sida ay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed uga faa'iideysteen intii uu socday koobka dunida ee lagu qabanayay dalka Qatar waxaana ayaa garabkayga fadhiya Maxamed Bahanjit saaxiibkii Maxamed baa garabkayga fadhiya oo indhow kala maqnayn isaga oo safar nooga yar maqnaa Maxamed ugu horeyn welcome back soo dhawow baan ku leeyahay bal maxaa u dambeeyay aad iyo aad maasantay ilaysow tan iyo intii uu bilowday koobka adduunka iyo weliba ka horba waan kala maqnayn xogow waxaad moodaa in waayaha iyo adduunku noo kala maqnaa si kastaba waxyaabihii ugu dambeeyey tan iyo intii uu socday world cupka iyo weliba wixii ka horreeyey iyo haddoo laga soo gudbay world cupka waxa socdo ayaanu halkan idinla wadaagaynaa insha allah haddii waxyaabaha markaasi aan dhahnay maxay ka faa'iidi karaan asxaabta mar walba inii soo gudbinaa inta badan dabcan world cupka dad badan ayaa ka faa'iiday ayagoo u maraya markaasi iqaamada ama fiisaha ay ka helayaan waddanka Qatar waxaan ognahay Qatar fiisaheedu aad uma adko waa la heli karaa laakiin inaad ka duusho oo waddan kale ka sii aado ayaa inta badan adkayd laakiin world cupka intuu socday dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa ka faa'iideystay kuwaasi oo horeyba intii world cupka la isku diyaarinayay ayagu intay tageen waddanka Qatar deganaansho xareystay kadibna ay u sahlanaatay inay ka aadaan Brazil iyo weliba wadamo lamida dhinaca kaleeto waxay sahashay in dadkii imaanaya Qatar ay kusoo dhex dhintaan dad badan oo markaasi wato baasaboorro kaleeto oo uga bixi waayey Kenya oo kaleeto ama Ethiopia oo kaleeto uga bixi waayey inta halkaa tageen ayagana ay u sahlanaatay inay ka duulaan oo aadaan dhanka Suriname ayadan dhalinyaro badan ayaana loo soo sheegay si kastaba markaad fiirso tani world cup intuu socday dhalinyaro badan ayaa ka faa'iiday waan gartay dhalinyaradaasi qaab noocay ayay uga baxeen dalka Qatar طبعا إنه هذا مرة والبا وحب حي وما سود دقيقة بوقت طبعا الرياضة سوى هيستين في زيال أو صرنا ما هيستين ويكرب حوالين وضمدي أي باس براد وبتين وقوات كذا فكسامبل هذا كان يأكل توحدة تاي إلى كاتي ولا بيحكين لكن وحاجة فرصة ذاك اللي تو ضمد عرب تاتا تكتو القصيد بيحكي أو أي كديد إنها مديار هذا أي بحان لكن كان يأكل تو كلام بس هكذا كلام من مقتي ويدي تاتا هو فشل انت si kasta marka dadkaasi waxay ka faa'iideen ayagoo isticmaalayo ama Qatar Airways ama sidoo kale diyaarado kale ayagoo isticmaalayo ayay ka faa'iideen waxayna mareen dhanka markaas Suriname intooda badan maalintii yar waxa jiray magaciisa mar inaan inta ka sheegay laakiin uu daawan doona dabcan la saali doona wuxuu joogaa Qatar deganaashu ka haysta wuxuu yiri brother way u adkaatay inaan ka baxo Qatar okay marka yarkii wuxuu sheegay inay jirta caqabad qofka Qatar joogo markaasi lacagta mushaarka uu qaadanayo hadii ay ka yartahay 5,000 oo lacagta wadankaas mushaarka uu qaadanayo way ku adkaan safaarada Brazil inay siiso fiisa laakiin dabcan waxaan ani u sheegay hadii yani aad danaynayso wali boofiskan uu jiro inaad wada kala raadiso hadii ay corruption yeelayaan aad martid marka wada corruption laga yaqaan meeshaas si kastaba dad noocaas ugu adkaan way jirtaa laakiin dad badan waxa jira ayadana aynan ku adkaanaynin wixiina Ilaahay uga dhigayo sida uu rabay marka mar walba waxa weeyo adiga tariiba diyaarin balan ba diyaarsan laakiin balanka Ilaahay waa meeshiisa dad badan waxa jiro adiga lacag badan maanta waxa adiga aad haysta ka badan baasaboorka haysta ka weyn laakiin aan hadana wixii u hagaagaynin dad waxa jira adiga ka hoos hadana wixii durba Ilaahay uga dhigayo magaranaysa briqs uga dhigayo
marka dadka ka faa'iiday intooda badan waa dadkii fiisaha Suriname haystay ee markaasi ku adkaatay wadamada sida baasaboorada ay wataan inay ka baxaan sidoo kale maxaa u dambeeyayna dhankan Laatinka maristeeda Laatinka wadooyin badan ay jiray, waxaa jira Chile baa jiray, Argentina jirtay oo la arkay dad badan oo ku baxayo. Brazil afterkeeda way qaaliyooday oo hadda for example hadda wadamadan East Africa oo kale qaali bay ka noqotay 15,000 $9,000 fiisa la kala qaadanaya. Laakiin wali nasiibku waxa weeyo inuu ku saaciida laga yaabaa barnaamijyo badan oo lagu baxaya jiro haddii adiga maanta aad tahay qof luqad yaqaano ama wax bartay waxaa jirta barnaamijyo badan oo ka faa'iidi karto laakiin muuqaalka kan xigo ayaan idinku faahfaahin doonaa aad baad mahadsantahay saaxiibayaal barnaamijkan kan xiga waxaan idinku soo gudbin doonaa mid ka mid ah wadooyinka ugu sahlan ee aad ku tagi karta Laatiin adiga oo isla markaana si nabad ah ku tagaya kharash badan oo midka muqallisiinta ay qaataan aan ka baxaynin sidoo kale aadan maraynin muqallis ayaan muuqaalkan kan xiga idinku soo gudbin doonaa fadlan muuqaalkan si shargareeya asxaab badan gaarsiiya haddii muuqaalkan aad shargareysaan isla markaana leegtiisa aad gaarsiisaan 1,000 iyo wax ka badan muuqaalkaasi sida u dhaqsaha badan ayaa soo gelinaa waana wado si sahlan aad ku tagi kartid Laatiin adigoon marin muqallis adigoon qof lacag ka qaadanin qof ku dhicin si nabada taygaada iyo suudkaada qaba aad ku raacaysa diyaaradda isla markaana wadan walba oo Laatiin ka mid ah ama wadamada qaar ee aan sheegi doono muuqaalkaas aan ku sheegi doono aan idinku soo gudbinaynaa waxaana si nabada aad uga sii bixi kartaa wadamadaasi idinkoo wadanka Mexico si nabada ku gaari doono insha Allah muuqaalkan si shargareeya ballanteenu waa inaad muuqaalkan shargareysaan asxaabta tahriibka jacayl ama doona daneynaya in ay wadamada horumaray ay gaaraan muuqaalkan aad baad u mahadsantihiin